kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV waa 9 bisha 9 sanada 2020 ku soo dhawaada warka galab qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Galmudug oo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed Hirshabeelle oo sheegtay inay ka hortageen weerar al-shabaab ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha Balcad dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan al-shabaab iyo laba dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay dishay saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeena galabna waxa akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeena waxa qayb ka qarax khasaare badan dhaliyo oo ka dhacay gudaha wadanka Afghanistan daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena galab ee Faafi TV imikiyatan u diyaar garooba iyagii oo inta ka faahfaahsan Hirshabeelle ayaa sheegtay inay ka hortageen shabaab qarax ay ku xir lahaayeen buundada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay weerarkii cuslaa ee al-shabaab ku soo qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyr ayaa sheegay in xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka soo qaaday aysan u suurtagelin in ay gudaha u soo galaan magaalada isla markaana uu hadafkoodu ahaa in ay qaraxyo ku xiraan buundada degmada Balcad waxa uu sheegay in qasaaraha dhanka ciidanka dawladda uu yahay hal askari oo dhimasho iyo 3 kale oo dhaawac ah dhowr jeer ayaa al-shabaab waxa ay sidaan oo kale weerar ku soo qaadeen magaalada Balcad wasiirka ayaa ka hadlay sababta mar walba al-shabaab ay u soo qaadaan weerarada soo laabtay isagoona ka hadlay waxa uu yiri Balcad sidaanu ognahay waa istiraatiiji magaalo ah taas oo xiriirisa Muqdisho iyo Shabeellaha Dhexe sidoo kalena Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ay xiriirisaa marka maadaama deegaankaas uu yahay mid istiraatiiji ah ayaa keenaysa in ay ku soo laabtaan weerarada ayuu yiri Hirshabeelle ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerar al-shabaab ay soo qaadi lahaayeen inkastoo ugu dambeyntii weerar dhowr ah al-shabaab ay ka geysteen gudaha degmada Balcad iyo deegaano kale oo ka tirsan Hirshabeelle ciidamo badan oo kuwa dawladda iyo kuwa Hirshabeelle ayaa ku sugan degmada Balcad waxaana dad badan isweydiinayaan sababta weerar soo laabtay al-shabaab ay dhowr jeer halkaas ugu soo qaadeen iyadoo la og yahay in ciidanka amisoomna ay qayb ka yihiin ciidamada halka ku sugan waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Hirshabeelle oo ay gacanta ku hayaan xilligan balse loo maarala yahay weerarada al-shabaab ay ku soo qaadayaan madaxweynaha Galmudug ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa garoonka magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor wafdigan uu ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa halkaasi waxay u tageen ka qaybgalka shirka iskaashiga iyo wada tashiga dawlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo goordhow halkaas ka furmaya madaxda shirka ku yeelanaya Baydhabo ayaa sidoo kale waxay soo gaarayaan Muqdisho iyagoo kulan gaar ah la qaadan doono safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan beesha caalamka oo ku sugan Muqdisho kulankan wada tashiga Baydhabo ayaa mid ay madaxdu kaga arrinsanayaan ma waxaynu tagnaa Muqdisho mise waxaan ku adkaysanaa go'aankii Dhuusamareeb kaas oo ahaa in shirkii Dhuusamareeb 3 qodobadii ka soo baxay dawladda Soomaaliya ay si ambaqaado xilli Axmed Madoobe iyo Dani ay diidan yihiinba in 3dan maamul goboleed ay ka maqnaadaan shirka dhexmaraya madaxda dalka iyo sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyadoo loo arko caqabada shirkaas uu ka soo canlayahay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku sugan Muqdisho kuwaas oo diidan dalabyo badan hor dhigay dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab ciidanka commandoska dawladda Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose howlgalladaas ayaa ahaa kuwa ka dhan ah al-shabaab oo mararka qaarkood weerar ka fuliyo gobolkaas saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in howlgalladaas ay ka fuliyeen deegaanada kala ah Waamo Maroodiile iyo deegaano kale oo dhammaantoodba 75 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland taliyaha guutada 16aad ee commandoska Danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa warbaahinta dawladda waxa uu sheegay in ciidamada Danab commandoska dawladda Soomaaliya ay ku daateen saldhigga al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hooseeya gobolka Jubbada Hoose taliya Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Danab ay howlgalkaas ku dileen 2 sargaal iyo sidoo kale 11 xubnood oo al-shabaab ka tirsan xilli ay ku sugnaayeen deegaano ay ciidanku howlgalka wadeen taliyaha commandoska Soomaaliya ayaa saraakiisha howlgalkan lagu dilay waxa uu magacyadooda ku kala sheegay Xiiro oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka lagu magacaabo Waamo iyo sidoo kale Cabdi Maxamed Bashiir oo al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Jubbada Hoose maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxa ka socda howlgallo ay wadaan ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland waxaana howlgalladaasi barbar socda weerar ay soo qaadayaan al-shabaab daawadayaal wali waxa daawanaysaan oo la socotaan warka galab ee Faafi TV markaana akhbaraadka dibadda qarax khasaare geysay ayaa waxa uu ka dhacay gudaha wadanka Afghanistan madaxweyne ku-xigeenka Afghanistan Armullah Salah ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray qarax lala eegtay kolonyo uu la socday oo marayay magaalada Kaabul ee caasimadda wadanka Afghanistan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qofood halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa la sheegaya inuu xafiiskiisa ku sii jeedo markii qarax la eeganayay waxaa la arkay madaxweyne ku-xigeenka oo gacanta bidix ay faashad kaga duwan tahay kaas oo loo sii wado isbitaal ku yaala magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan
ururka Taliban ee ka dagaalama Afghanistan ayaa ka soo horjeeda gebi ahaanba dawladda waddanka Afghanistan waxayna u arkaan mid xilligan aanan maamuli karin dalkaas dhowr jeer ayaana la damcay in la iskugu keeno wadahadalla Afghanistan dawladdeeda iyo sidoo kale Taliban balse wadahadalladaas ayaa noqday kuwo guul dareysay waxaana ka mid ahaa wadahadalladii Mareykanka uu kal hor iskaga baxay kuwaas oo ahaa in Taliban ay ogolaato inay xabadda joojiso Mareykankuna uu ka huleelo gudaha Afghanistan oo muddo dheer oo 20 sano ah uu joogay balse wadahadalladaas oo ka socda Qatar waxaa ka baxay dawladda Mareykanka ugu dambeynna waxaa dib u bilowday dagaalkii Afghanistan iyo Taliban ka bixitaanka wadahadalladii Mareykanka ayaa waxay ku soo aaday iyadoo Afghanistan lagu dilay mid ka mid ah ciidanka Mareykanka ee halka joogay sababtaas ayaana keentay in Afghanistan mar kale ay dib uga bilowdaan weeraradii ururka Taliban dagaalka daba dheeraaday ee Afghanistan ka socda una dhaxeeya dawladda waddankaas iyo sidoo kale ururkan Taliban ayaa ah mid aan joogsi lahayn waxaana dad badan ay ku wareersan yihiin dhamaadka dagaalkaas oo ah mid 20 sano jirsaday Mareykanku wuxuu wali ku adkeysanayaa in uu taageero dawladda Afghanistan ee caalamku uu aqoonsan yahay ururka Taliban ayaana gebi ahaanba diidan in wax wada hadal ay la galaan dawladda Afghanistan kaliyana waxay dalbadeen in Mareykanku uu meesha ka baxo waxaana la ogyahay haddii Mareykanka iyo NATO ay iskaga baxaan waddankaas inay dib u soo laabanayaan ururka Taliban oo aanan jirin awood kale oo celin karta daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warkii galab oo aad ka daawanayseen Faafi TV waad ku maasantiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena